السلام عليكم. فرينتا maanta waxa weey in aanad raacin dhanka loo badan yahay ee aad raacdo dhanka saxda ah. Inta badan waxayna khalda oo aan ku lugo'naa dad badan baa sameeyay darteed inaan wax u sameeyno iyo dad badan baa u arka inay sax tahay inaan wax u sameeyno. Xaqiiqdu waxa weey waxa saxda ah inta badan dadku ma raacaan. Waxaan u badannahay in dhinaca fudud iyo shortcuts-ka iyo dhinaca sahlan iyo waxa la qaban karo iyo waxa caadiga aynu badankeenu qabano. Tirada yar ee ku dhiirata inay ku dhacdo qabashada waxa laga cabsoodo. Tirada yar ee ku dhacda ee leh dhiiranaanta ay ku wajahaan waxyaabaha laga baqo in la wajaho ayaa dhabtii gaadha darajooyinka sare nolosha. Nin macallin oo ah wuxuu oran jiray, "It's lonely at the top, but you eat better." xagga sare ee nolosha darajooyinka sare ee noloshu waa cidla inta badan dad badan ma joogaan sababtuna waxa weeye because halka tagideeda adag halka tagideeda shaqo iyo tacab iyo daal adag u baahan halka tagideeda qiimo adag baa ku xidhan waxana kaliya taga dadka bixiya qiimaha nolosha qaybaheega hoose waa buuq meelaheega hoose waa buuq dadka u badan inay meelaha hoose nolosha u maleeyaan inay meesha caadiga ee ay karaan tahay because marar badan mashaakilaadka iyo caqabadaha nolosha inaga soo wajahaya waxay inaga xanibaan inaan aragno waxay noo suuragalka waxay inaga xanibaan inaan dhadhamino karaankeena waxay inaga xanibaan inaan potentialkeena iyo kartideena wax inaga dhigi karta ama waxaan rabnay in gaarsiin karta inaan arki weyno taasaa sababtay in lagu qanco waxyaabaha caadiga iyo meelaha caadiga iyo goobada aan la qabsanay dadkaan la qabsanay meelaha la qabsanay iyo waxaan la qabsanay war nolosha qaybaheega sare way haawanaysaa dad badan ma joogaan sababta dad yar oo tiro yar u guuleystaan oo natiijooyin macnale u gaaraan wax kale ma aha waayo waxay ogolaadeen inay bixiyaan qiimaha dhabta ah ee darajooyinka sare nolosha lagu gaaro badankeenuna qiimaha ma bixino haddii inuu ay ka go'an tahay inaad qof qiimo la noqoto waxa qalbigaaga ku weyn aad u dhawaato waxa maskaxdaadu ku hamiyeysan aad gaadho bixi qiimaha waxa bixinteedana waxa ugu horeysa inaad 100% waxay kaaga baahan tahay siiso waliba waxa aad raadinayso ugu waxa raadinaya 1000 qof oo kale ugu badnaan 1000 qof oo ugu yaraan 1000 qof oo kale oo ka agdhow baa raadinaya laga yaabaa inay ka resource badan yihiin laga yaabaa inay ka fursado badan yihiin si ka taageero badan yihiin oo ay u fududahay inay gaaraan meelaha qaar laakiin ogow mar walba talaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaado iyo qiimaha aad laga rabo inaad bixiso oo ay ka rabto meesha aad u socotaa ila garo qiimaha una go'aamina qiimaha wax ka sareeya bixi si qiimaha keenideedu ay kuugu fududaato war haddii dayaxa ay tahay gaaridaada hamigaagu dayaxa gaaridiisa yahay waxa la qabsadaa cadeeda si dayaxa gaaridiisu ay u noqoto wax optionka labaada oo marka ta koobaad sameyn kari weydaad ku soo dhacdo marka horeba adigoo dayaxa ku hamiyay hadaad xidigaha si qabsato xidigaha meel ka hooseeyaad ku dhacaysaa nolosha inaan wax ka noqono oo gaadhno natiijooyin macna leh oo aan gaadhno meelaha qalbigeena ku weyn waxa u baahan tahay kaliya inaan qiimaheega bixino qiimahaasina waxa ugu weyn aad bixinaysaa waxa weeyaan naftaada iyo waqtigaaga iyo hamigaaga iyo fikirkaaga inaad meel isku geyso oo baasha dhex mariso of course waa suuragal inaad wax noqoto inaad hamigaaga gaadho because wax kastoo lagu hamiyay waa la gaadhay ticil libinta ka xigta ma jiro cid ka xigta libintu ma jirto صعبنا صعبكaaga kaagama horeeyo aamin inay waxaasi suuragal yihiin qiimaheegana bixi meelaha hoose buuqaana ka kac meelaha sare ee cidlada laakiin lagu raaxaystay nolosha teeda sare ah ee darajooyinka sare qoorta loo suro dadka gaara laakiin dad badan aanay joogin meesha qiimaheega bixi you will eat better and you will sleep better